السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام صاحب يال وصاحبك حرسي عاون هو 4 جنوري 2026 waxaan soo keenday beesay sanadka hore 2025 caawa waxaan rabaa inaan dib u milicsano oon idinla wadaago heshiis ay wada galeen beesha Garxajis iyo dowladda British 1884 waxaa muhiim ah inaad ogaatid meesha ugu horeysay ee gumeystay dhul Soomaaliyeed lugta ka soo dhigortay inay ahayd waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan meelaha ay degaan beesha Isaaq heshiiskan ma ahayn heshiiska ugu horeeyay waxaa jira heshiisyo badan waxaan soo dilisha doonaa book la dhaho The Scramble of Horn of Africa buuggan beejkiisa 661 waxaa ku xusan heshiis ay wada galeen beesha Garxajis iyo dowladda Ingiriiska heshiiskii ay wada galeen wuxuu u dhaxayay sidatan beesha Garxajis waxay rabaan inay heshiis la gasho dowladda Ingiriiska oo uu ilaaliyo madax banaanidooda macnaha inuu ilaaliyo Ingiriiska madax banaanida beesha Garxajis qodobka koowaad beesha Garxajis waxay halkan ku cadeynaysaa ballan qaadayaan ay ku qasban yihiin inaysan weligood ka bixin heshiiska ay la galeen dowladda Ingiriiska kaasoo lagu dhahay in ay macnaha ganacsi iyo dhul bixin iyo wax walba oo ku saabsan adiga deegaankooda iyo sourcigoodaba qof aan Ingiriiska ahayn inaan loo gacan gelin qodobka labaad wuxuu cadeynaa sidatan markab kasta oo wata calanka dowladda Ingiriiska inuu ku soo xiran karo oo si nabad ah u ganacsan karo dhulka beesha Garxajis qodobka saddexaad wuxuu leeyahay dhammaan dadka sita ama dadka u dhashay Britain inay dhulka Garxajis imaan karaan ku noolaan karaan si amni u socon karaan lana damaanad qaadan amnigooda qodobka afraad ugu wanaagsan oo la dhihi kara qodobka ugu roonaa uguna fiicnaa ee taariikhda ay galeen wuxuu ahaa in dhulkooda aan laga dhoofin adoomo qodobkaasna waxay la galeen sharcigaasna macnaha heshiiskaasna waxay la galeen dowladda Ingiriiska balse maxaa ka dhashay soo dhaweyntii ay soo dhaweeyeen dowladda Ingiriiska ballanqaadka ay ballan qaadeen amni iyo deganaansho inay siiyaan dadka u dhashay beesha Britain dalka Britain maxaa ka dambeeyay waxaa ka dambeeyay gumeysi ama waxay ugu magac dareen British Protectorate marka maanta heshiiska ay wada galeen maamulka Israa'iil iyo maamul goboleedka Somaliland maxay kula tahay heshiiska ay wada galeen although aan la cadeyn aan aragna kaliya Netanyahu oo siiyay aqoonsi ama aqoonsaday dowladda Somaliland Somaliland xaggeeda maxay ku bedeshay heshiiskaas maxay kula tahay adiga mana jeclaa lahayd inaan soo bandhigno oon si kaliya u akhrino heshiiska ay wada galeen Britain iyo Garxajis haddii fikirkaagu hayahay fadlan noogu reeb fariintaada qaybta hoose mahadsanid